بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد السلام أصحابي. قeyb kale oo ka mid ah tilmaamaha ay leeyihiin dadka wanaagsan ama dadka leh qalbiyada wanaagsan. waxay aad ugu kalsoonaadaan dadka kale waxay siiyaan kalsooni badan ka hor inta aan la dhibaateen, laakiin markii dhibaato badan ay kaga timaado dadka kalsoonidooda way yaraataa. waxay bilaabaan inay qaataan digtoono, inay xadar sameeyaan ayay bilaabaan. laakiin tilmaamaha lagu yaqaano waxaa ka mid ah inay yihiin dad aad u siiya kalsoonida dadka oo aad ugu kalsoonaada, waayo ayaga ayaa ah dad wanaagsan. sidaas aawadeed ayay dadka kale waxay ka filanayaan inay yihiin dad wanaagsan. mararka qaar dad wanaagsan ayay la kulmaan, mararka qaarna dad xun ayay la kulmaan. marka dadka oo dhan in kalsoonida inaan la wada siinin ayaa qurux badan. tilmaamooyinka lagu yaqaanana waxaa ka mid ah in ay yihiin dad mar walba dhoola cadeeya oo qalbi wanaagsan inay yihiin, in dad ay yihiin aan dadka dhibaateyn karin. waxyaabaha aadka cajiibka ah waxaa ka mid ah xataa qofkii dhibaateeya inaanay dhibaato ugu bedeli karin oo aanay awood u lahayn inay dhibaateeyaan inta uu dhibaateeyay. in la eg qalbigooda oo wanaagsan darteed ma awoodaan inay dhibaateeyaan qofka marnaba, xataa haddii uu yahay qofkii dhibaateeyay. waxaa kaleento oo ka mid ah inay jecel yihiin wax bixinta, wax siinta, inay aad u jecel yihiin naxariista. ay leeyihiin naxariis badan oo dadka ay u sameeyaan naxariis aad u fara badan oon shuruud lahayn, oo haddii ay arkaan qof dhiban amba dhibaato hayso aanay ka tegi karin, oo maxay ahayd ay aad naxariistooda ay u badan tahay. tilmaamooyinkooda kaleento waxaa ka mid ah in isla markii dadka qalbiga wanaagsan ay xanaaqaan ay isla markii soo laabtaan caradooda ay yihiin kuwa kasoo laabta oon aad carada ugu fogaanin. dad waxaa arkaysaa intaasoo beri careysan, ayaga maya, dad si fudud waxawaaye ku raali noqonayo. subxaan allah, dad waxawaaye si raaligelintooda way sahlan tahay xataa haddii aad qaladka gashid, haddii aad u timaadid aad tiraahid iga raali noqo waxaana sameeyey, si dhaqsi leh ayay ku cafinayaan. dadka qalbiyada wanaagsan ayaa sameyn kara taas, dadka oo dhan ma wada sameyn karaan. maasha allah, tabaaraka allah. haddii aad kamid tahay dadkaas oo qalbiga wanaagsan, waxawaaye waxaa fariinta aan ku siinayo waxay tahay in aad yareysid filashada badan, oo dhinaca kaleenta wax aad ka filanaysid aad yareysid. waayo dad idurub wax aadan ka filaynin ayaa kaaga soo baxo. kalsooni fara badan aadan siinin, naftaada waxay kasoo baxaan aadan aad ugu kalsoonaan, oo kalsoonidaada ay ahaato dhexdhexaad. wax walbana aad isku dheeli tirtid. kalsoonida faraha badan aad dadka siinaysidna jooji. in badan waad aragtaa soomaa, markaad kalsooni badan aad siisid, markaad filasho badan aad samaysid, waxaa kaaga imaado dhaawacyo ayaa kaaga imaanayo haddii aad tahay dadka qalbiga wanaagsan.